faahfaahin dheeraad ayaa ka soo bixaysa weerar loo adeegsaday bam gacmeedyo oo xalay lagu qaaday xarunta weyn ee shirkadda Almacruuf Supermarket ay ku leedahay magaalada Boosaaso. Weerarkan oo ay geysteen dable hubeysan ayaa waxa ka dhashay khasaare naf iyo maalba isugu jira, waxaana la xaqiijiyay geerida hal qof oo ka mid ahaa howlwadeennada xaruntani. sidoo kale dab xoogan oo ka dhashay bam gacmeedka lagu tuuray goobtan ganacsi ayaa khasaare hantiyeed u geystay qaybo ka mid ah shirkadda, iyadoona dadaal dheer kadib lagu guuleystay in la damiyo dabka. gudoomiyaha degmada Boosaaso Xasan Cabdalla Xasan oo warbaahinta kula hadlay goobta ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in dawladdu ay dardar gelin doonto sugidda ammaanka, wuxuuna bulshada ugu baaqay inay taxadar muujiyaan. dib weyn baa ka dhacday magaalada Boosaaso, dhibtaas oo ah supermarketkii Macruuf oo la soo weeraray ay soo weerareen dad lugooyo iyo dhibaato ku hayay awalba dadka iyo deegaanka. dadkaasi waxay geysteen khasaaradaasuna waxa ay isugu jiraan dhimasho iyo dhaawac labadaba. waxa kaloo jiray dhibaatada jidhay waxay ahayd inay dadkii ay neeftu qabatay oo bambooyin gudaha lagu tuuray ay dhibaato u geysatay. hase yeeshee waxa weeye waa la damiyey hadda ugu dambayn dabkii ka kacay. waxaan insha Allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu u caawil celiyo dadka khasaaradu soo gaartay. waxaan rajaynayaa dadka magaalada deegaanka reer Boosaaso inay taxadar badan in la muujiyo, waliba goobaha muhiimka ah ee ganacsiga iyo hawlaha kale ay ka jiraan in si gaar ah taxadar loo ahaado. ilaahay idinkiis dawladda iyo ciidanka iyo maxaa la maamulkuba iyaguna hawsha ku aadan insha Allah waa dardar gelin doonaan. maxaa la yiraahdaa waxaan rajaynaynaa in la iskaashado hawshaasuna saas u dhacday. weerarka xalay lagu qaaday xarunta ganacsiga lagu magacaabo Macruuf Supermarket ee Boosaaso waxa uu ku soo aadayay xilli bilihii la soo dhaafay ammaanka magaaladu ahaa mid wanaagsan, mana jirto cid si rasmi ah u sheegatay mas'uuliyadda weerarkani. Maxamed Madani, Universal TV, Boosaaso.